kulankan oo lagu taageerayo horumarka iyo nabadgelyada ka jirta deegaanada Jubbaland isla markaasina laga soo horjeeday fargelinta qaawan ee ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. kulankan oo ay soo qaban qaabisay ururada bulshada rayidka ah ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Junsa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland warkacaya gudoomiyaha degmada Kismaayo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Warar waxa kulanka ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajil ayaa ku dheeraaday taariikhda iyo marxaladii kala duwan ee ay soo martay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo isagoo ku baaqay in hore lagu sii wado halka ay maanta joogto Jubbaland. waxaan filayaa kulay dadkan waxa isu keenay hadda oo inay shirkan qabtaan waxa sababay waxa waaye dareen jira waa dareen baa jira. Jubbaland cidna duulaan kuma inay doorasho qabsatay rabtaa xildhibaano inay doorato ka bacdina madaxweyne dooratay rabtaa wax kale oo ay rabtaa ma jiro. intaas marka aad moodaa in lagu haysto oo laynoo diidan yahay oo la leeyahay adu saan waxuma dooran kartid sidaan u dooro. hal arrin oo kale waxaan rabaa anigu bal inaynu isweydiino inagu haddaynu reer Kismaayo ama reer Jubbaland inagu dowlad federaal aynu ka tirsannahay oo Soomaaliya oo ka kooban dowlad goboleedyo iyo dowladda dhexe. xubin dowlad ah ee ka kooban tahay baanu ka mid nahay inaynu isdhisno oo hore u marro oo barwaaqowno oo meel fiican gaaraynu rabnaa. annaga waxa waaye waa garanaynaa meeshaynu reer Jubbaland oo ka soo bilownay mar rabo inaan ku noqdo taariikhdii dheerayd oo madoobay oo Kismaayo laakiin maalintii maamulka halkan ka jira uu bilaabmay meeshaan isay ahayd waa garanaynaa Soomaa magaaladan isay ahayd waa garanaynaa xaaladaynu ku sugnayn waa garanaynaa. maantana xagee joognaa inaynu dib u noqono oo wixii hooga iyo baaha iyo wixii Kismaayo ahaan jirtay waayadii iyo hebel baa kala qabsatay miyaynu ku noqonaynaa? waxaa la rabaa marka annagu halkaa aan taagannahay horey baan uga soconaynaa gadaal uga noqon mayno. Xadar Axmed Juraati oo xubin ka ah dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Junsa oo sidoo kale halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in la joojiyo hadallada xanafta leh ee lagu baahiyo baraha bulshada. waxaa waaye Jubbaland waa Soomaaliya waa markaan leeyahay dadka Ilaahay uu abuuray oo Soomaaliya ku abuuray oo dhan baa Jubbaland ay ka kooban tahay. wax la dhayalsan kara ama qoys ama reer dhistay maamul goboleed ma nihin annaka waxaan nahay Soomaaliya oo isu timid baana waana la dhageystaa waay. waxaan kaloo rabaa inaan sheego waxaan dooranaynaa madaxweyne waxaan dooranaynaa baarlamaan 75 ah. codka baarlamaanka waa codka shacabka reer Jubbaland waay 75 taas 75 way ogyihiin meesha annaka aan rabno. shacabkan baad matashaa nin cid kale ma matashi. shacabka waxay rabaan ay ku heesayaan oo ku qarwaayaan habeenkii waa inaad dhagaysaan oo ugu ridaan annaga waa ognahay cidda rabta waa ogtiin. ka gadaal markuu soo ilaaday kulanka ayaa shacabka waxay socod ku soo mareen laamiga weyn ee magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo warbaahinta Koonfur Galbeed la hadlay ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda iyo horumarka Jubbaland. waxaan maanta u soo banaanbaxnay oo aan boorka u sanaa nabadgelyada iyo dad wixii naga sayeen u goynay inaanu iska qabanno aan tusno nabadgelyada aan haysano iyo banaanbaxyaga. waxa aan soo jeedinayaa dhammaan Jubbaland horta waa salaamaya bacda salaan. maanta waxaad moodaa lanaanta aan ku jiro dad baa raba cagta inay ku dhuftaan oo murashaxiin doona xagee lagu arkay dad murashaxiina oo gacan saddexaad meel kale laga maamulayo oo federaalku hogaaminayo. magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashooyinka Jubbaland oo la filayo inay dhacdo dabayaaqada bisha soo socotay Agoosto ee sanadkan. Xabil Abshir Yuusuf, raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, magaalada Kismaayo.